way hadal leedin war Samatar maxaad haysaa madaxnimada doonaysa iyo inaad noo noqoto waddan ka noqoto haddaan taa Soomaalidii kala bad u tagay tanaaba and I have more maxaan ku rights here than there. If Somaliland is to live, haday Somaliland sii noolaanayso way sii hilaacayso, tribe will have to die. qabiil waxa tolnimada ma hadda tolnimada ee kadanu reegile baan ku dhaatay gibli hadda dhagis reegile baan hay bakbar kuma oran anu nin Samaroona reegile baan haban ku ayaan anu idhaa reegile wala yaqaan dad badan baa tegay. I'm a citizen of Gabiley district and I have particular obligations and love for those people. haddii qabiilku noolaanayana, if the tribe has to live, Somaliland has to die. maxaa ku deeqaa qolay dhalinyarihii jaamacadna Samatar intuu nin yar dhalinyaro istaagay very bright guy yuri anigu su'aal quran qabaayo waxa way one word maxaa ku deeqa waxaan ku yiri I mean I have to really think quickly on my feet waxaan ku yiri maxaad haysaan anigu mid baan ballan ku qaaday haddaan siyaasadda Somaliland galo if I do and mid ballan bay iga tahay intiina halkan fadhida iyo wixii aad gaadhsiin kartaan so the word goes forth. I will challenge candidates kale in public in debates la noo qabto. Debate-kaasuna ay noqdaan live on TV. Audience-ka jaamacadii Hargeysa oo kale amba Burco oo kale amba Laascaanood whatever the place is la fadhiisto oo Hargeysa lagu qabana meelo kale lagu qabto. Yeah. TV-gii private-ka ahaa HTV on cable iyo maxaan ku raayay and the other stations Universal and others jiraan Star TV others iyo National TV iyo radio live oo iga gogo iyo xas ma jirto waxa ka soo dhaca dhegta ku dhacan deegan oo de Mareykan lama sameeyo de lama edit garay inta meel lagu xidho lama ila gogo iyo hagaaji ma live saadigarmis anigu ballan baan ku qaaday inaan challenge public ku sameeyo ceebna ma hadda xumaana ma waxa weeye wadankii baynu u tartamayna inaan hogaaminaa soo maaha waa xalaal tartanku soo maaha wardee saddex debate noo qabta mid dhaqaalaha ku saabsan mid siyaasadda dibadda ku saabsan for example mid education iyo caafimaadka ku saabsan arrimaha waaweyn caynkaas mid ku saabsan qaranka Somaliland sida loo sii adkaynayo wada jirkiisa debate noo sameeyo laba saddex journalistna oo waaweyn oo dad wax garadana loo dhiib su'aalaha si diyaarsadaan waa live kolka de amba kuf amba dhuumo aday ku jirtaa soo digarmis amba yaa reehebel ay de aday ku jirtaa soo digarmis taasi waa kow jaamacadaha TV-yada iyo radio-da networks caynkaas in la sameeyo lagu heshiiyo la sameeyo meel kale oo maxaan ku rahay aan laga dooda aan laga eegin anigu aan aaminsanahay inay noqon karto saldhig wanaagsan waa masaajidada weyn soo digarmis masaajidadu maaha un meel aakhiro loo sii shaqaysto that's important masaajidadu weeyaan waxa weeyaan also meel adduunyadan lagaga hadla sida loo dhisayo ya lagaga hadla masaajidada ilbaxina labadaba hawladba waa la wadaa aakhiriya adduun labadaba waa la wadaa marka masaajidadu meelaha caynkaas ay noqon karaan masaajidada aan aqaano waxay leeyihiin meelo lagu kulmo ayay leeyihiin soo digarmis oo shir lagu sameyn karo. So the mosques can play that very important role, civic life. Inta yaray nagu hadhaba waa inta yaray islaamnimada dadnimada nagu hadhaba intaas bay. Taana waan anigu waan oran lahaa. So I agree with you. Anu ballankaasan galaya. Haddii kale maxaad ka dooni meesha. Su'aasha ugu horeysa la weydiinaa waa noqotaa Samatar iyo hebel iyo heblaay ha waa badda saddex qof ay noqonaysaa de madaxweyne ku xigeen saddexdana gooni isku raaciyeen saddexdana gooni isku raaciyeen waaba inta wax uba doorto soo digarmis marka su'aasha ugu horeysana waxa weeye madaxweyne doonaysa inaad walaashay ka noqoto Somaliland soo maaha maxaad haysaa halkeed geyn sideed ku geyn what do you have what are your talents halkeed geyni what is the vision sideed ku geyn halkaas horta balta halka hal ka bilaab marka ballankaasana waan geli
haddaanan ku jirina waynu ku gubaabin inta kale, and I have tried to do that and I will continue to say that. And tii leadershipka aan wax badan baan, this is a very serious one, aan wax badan baan tan ka qoray in badan for 20 years. Way qoran tahay calaamadaha lagu garto. Waan dhigaa seminar baan dhigaa sanadkii mar aan dhigo oo la yidhaaho leadership in global context. dadka islaamka taariikhdooda leadershipka sida ay u eegaan oo ibn khaldun oo kaliya dadkaasaan eegnaa. ibn khaldun wuxuu ku soo baxay, wuxuu joogay waqtigii la arkayay inay xidigtii maxaan ku rahay cadceeddii islaamku ay hoos u soo dhacayso oo dadkii leadershipka ahayd alwazii ay la laayahay oo deetana ay soo burburayso ayuu joogay. halkaasuu ka qoray almuqadama iyo buugagiisii calaamooyin lagu garto islaamka. saasaan waan darisnaa seminaarka wadamada reer galbeedka oo Machiavelli ugu horeeyo, the prince waan darisnaa. shiinaha iyo Japanese kuna dhaqankoogu aad isku dheeyay, Koreanka iyagana waan darisnaa, and then comparison baan samaynaa. calaamooyin ba universal jira. ta ugu horeysa waxa weeye aqoonyahanku rag iyo dumar, that's very important. inaan isa siinun de qolooyinkeena de gararka leh de maartay inaan isa siinun de inaku rag iyo dumar. ta ugu horeysa waxa weeye dadka wadanka ku nool waqtigaa la joogo, cimrigaa la joogo waqtiga ku nool, de waa inuu qofka garaadkiisa iyo aqoontiisu waa inay qofka caadiga ah ka weynta, haddii kale ma soconaysa de. a blind man or a blind woman leading the blind ain't gonna go. waa kow. noocyo badan bay taasuna aqoontaasuna leedahay, midun maaha, af ingiriisun maaha, noocyo badan bay, laakiin qofka garaadkiisa iyo aqoontiisu waa inay ka weyn tahay qofka caadiga ah, haddii kale waayo. second waxa weeye qofku inuu leeyahay vision, aad arkayso waxaan dadka kale aanay arkin, waa inaad arkayso. you have to see wataan idiin sheegay, you have to see what others cannot see. oo intaad tagto dhulkaa aanay arkayn, aad tagtood soo eegtood soo aragto, aad ku soo noqotood tidhaahdo halkaasaynu u guuraynaa, sidaynu ugu guuraynaana waa 1 iyo 2 iyo 3. waa kan strategic visionka waa inaad taa keento. third waxa weeye waa inaad record leedahay. record qofku rag iyo dumar waa record inaad leedahay, corruption aanu ku jirinta. mar haddaad corruption ay ku jirto de iyo dembigal caynkaasi uu ku jiro recordkaaga, waa in laga xaarantinimeeyo leadershipta. waayo de waxaad u soo socotaa waxa weeye de inaad dhacdo waddanka iyo dadka aad dhacdo. soo degan ta ugu dambaysaana laakiin waan soo koobi. ta ugu dambaysaa which is very important especially for Somali people, especially for us Somalilanders, haddaynu sii wadayno wadada dheer si la sii wadayo. war qabiil waa in laga taga. you have to. anuu Hargeysa airportkeegaan ka idhi markii ugu dambeysay, waa dhegaysatay maan filaya. airportka markii laygu horeysay TV-ga laga soo saaray diyaaradda hoosteedii markaan imid past December. if Somaliland is to live, hadday Somaliland sii noolaanayso way sii hilaacayso, tribe will have to die. qabiil waxa tolnimada ma hadda tolnimada eekada anu reer Gible baan waan ku dhaatay Gible. hadda dhegeyso reer Gible baan ahay bokbar kuma oran anu nisa maroonana reer Gible baan haban ku ayaan anu idhaa. reer Gible waa la yaqaan dad badan baa degay. I'm a citizen of Gible district and I have particular obligations and love for those people. haddii qabiilku noolaanayana, if the tribe has to live, Somaliland has to die. dukaanka albaabkiisa hal xidho. waa labadaas soo maad gar. marka waxa weeye qofku iyo tiimka ay wada socdaan, leadershipkuna qofun ma waanu team noqda. by the way qof kelidii wax ma qaban karo. Nelson Mandela waxa weeye team, laakiin qofka hor socda tiimka waa in laga arkaa sidoo ay gabadhaas u dhaqmi jirtay amba ninkaasi u dhaqmi jiray iyo sidoo u dhaqmaya maanta iyo wuxuu ku ballan qaadaya intuba inay qabiil ka xalaalaysan yihiin waa in la helaa. laakiin haddaan shalay ahaa nin reer hebel ah oo kitaabkayna halkaa igu jiray oo raadkaygii la arkay inaan qabiil ahaa, oon maanta carabka dadka usoo laalaado waa Somaliland baan ahay,
Somaliland bana halkii baad ku noqon recordkaagu waa inuu markhaati noqdo anu intaasaan odhan lahaa calaamooyinka ugu waaweynay waxa ugu dambeeyana waxa weeye dee kartidee haddii hawl lagu dhiibo kartideedii inaad karti leedaad kaga soo baxdo yeah competence but you can read I'll give you some citations and you can read iguma qarinta maadiga ahaa fiiri Abdullahi very good جوا سؤال Somaliland warankaasi kolba uu ka soo noqnoqdaa way soo celceliyeen gowdhe which is great haddii lagu tumayana waaba dee waa I feel sense of pride so maad garan laakiin waxa weeye anigu dee waataan in badan ba wax ka qoriyay Soomaali war sida hala yeelo dhaqaalaheegii baan wax ka qoray siyaasadeedii taariikhdeedii dibadda wax badan baan ka qoray 40-50 articles academic articles waxay markii dambe igu kaliftay la igu yiri samada adigu Ivory Tower jaamacadaas aad iska barwaaqaysan tahay ardayda yar ee wanaagsan iyo jaamacadda dhareegsan khalaas kaasaad farto ku fiiqday warda halka marade wadada mara kaale oo soo dhaadhaco dee wadanka wax ka qab cilmiga sheegaysa kaale keenta gegada macaan kula garoon kubad waa tan geeyay I went he's bihil qaran la yiraahdo abuurnay waan geynay shaqadeedii baan iskaga tagay for 2 years wax badan oo wanaagsan oo dadaan isbaranay ummadii Soomaaliyeed iyo dhalinyaro way jirtaa very good laakiin siyaasadii xamar taalay anu wataan sheegay way quruntay lama cabbi karayo you can drink it kolka waxaan isiri bal Somaliland soo eego dadkaasi sida yihiin iyo waxay sheegayaan inay dhab tahay halkay ku socdaan wax badan oo ay deeqan waan ku arkay Somaliland kolka waxa weeye haddii leedin war Samattaro maxaad haysaa madaxnimada doonaysa iyo inaad noo noqoto wadanka noqoto haddaan taa Soomaalidii kalaba dee u tagay dee tanaaba dee and I have more maxaan ku leeyahay rights here than there okay laakiin waxa weeye Cabdilaahow waxa weeye yeah you can drink it yes waxa weeye laakiin Somaliland qof ma dhaqaajin karayo halkay taagan tahay wax badan baa u ururay oo wanaagsan those have to be preserved haddaan la preserve garayna they will decay dhiig cusub iyo degdeg cusubna waa in la geliyaa oo dhalinyaradaasi shaqo abuurkooga ugu horeeyo kolkaa tiim baa loo baahan yahay marka dee waxa weeye reer Somaliland waxaan ku idhaahaa markay yidhaahaan maxaa ku deeqaa qolay dhalinyarihii jaamacad Samatter intuu nin yar dhalinyaro istaagay very bright guy yuu yidhi anigu su'aal quran qabaayo waxa weeye one word maxaa ku deeqa waxaan ku yidhi I mean I have to really think quickly on my feet waxaan ku yidhi maxaad haysaan so there we go yeah.